المرسلين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد. dhammaan madax dhaqameedka halka jooga madaxda kala duwan ee ugu horeeyaan madaxda ka socda xukuumadda iyo xisbiyada waan ugu horeysiinayo maxamed xaashi cabdi wasiirka madaxtooyada wafdiga halka isugu yimi ee kala duwan ergooyinka kala duwan meelaha kala duwan ka yimi dhammaantiin waan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadibna waxaan mahad ballaaran runtii usoo jeedinayaa waan la koobi karin beesha halkan nagu casuuntay ee ku shirtay ee markayna casuuntayna si sharaf iyo qiimo iyo waxa weeye kalgacal ee noogu soo dhaweysay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. mar labaad waxaan uga mahad celinayaa siday shirkooda hanaanka qurux badan u qabsadeen wixii ay halka ka sheegeen iyo wixii kale ay gaar u dhigteenbana waxaan leenahay allah idinku guuleeyo. waanan ku hambaliyeynaynaa sida ay annagoo siyaasiyiintu jeceshahay inay siyaasadda mar walba laga hadlo haddana waxaa siyaasadda gaarka noo ah nagala weyn ta qaranka iyo ummadda nagala weyn qarannimada nagala weyn wixii saca u dana baa weysha u dana wixii qaranka u dana baa xisbiga gaarka iyo siyaasiga gaarka u dana. waxaan aada ugu hambaliyeynayaa inay siyaasadda iska xakameeyeen nin walba ka darso koonahaaga ka darso nin walba waa ku fasax. saaxiibkay xasanna waxaan mar labaad runtii sidii uu sheegay leeyahay anigu kolley halka waan iman jirayo anigoo waddo sidana waan iman jiray anigoo biyo sidana waan iman jiray anigoo wax kale sidana waan iman jiray weli maan iman anigoo cod doonaya maan imano insha allahu tacaala kalsooni baan ku qabaa aada iyo aada oo kaliya laaba ayaan ku qabaa inaan wadaantayda ka buuxsanayo haddii allah wadalo warwar kama qabo. waxaase maanta runtii aanu u joojinay inaanu muujino intana soo dhaweynaysa iyo intana ogol iyo intana raacsan go-aamadii shalay anagoo ixtiraamayna komishku soo saareen ee xisbiyada oo ahaa inaana wax ololo muuqan ma rabo annagoo taa ka jawaabaynana guuraanu xalay kusoo dhaafnay degaanadoo dhan guuraanu kusoo dhaafnay waxaanu ku abarisanay halkan si aanu taa u ilaalino laakiinse kalsooni baanu ku qabnaa markeeda la gaadho biidni illahi tacaala. waxaan intaa uga gudbayaa runtii shirka quruxda badan ee aadka loo agaasimay ee ah inay reerku aayahooda ka tashadaan oo beeshanu aayahooda ka tashadaan ee ay ka tashadeen. waxaa laga yaabaa dadku had iyo jeer ale inuu siyaabo kala duwan u cabiro beelaha iyo shirarka inuu siyaabo kala duwan u cabiro laakiinse beeluhu markay yacni wax soo saaraan amaba qarankaba aan idhaahdo qaranku waa beelo isu tegay buu ka yimi unugiisu iyo degaano isu tegay. haddii beel waliba wanaag soo saarto macnaheedu waxa weeye wanaag baa ummadda ka dhalanaya. marka inay beeluhu shiraan ceeb maaha laakiinse inay shir xagtin iyo xinif leh ama wax lagu xumaynayo wax lagu xajiimeynayo ama dhexdooda wax lagu kharbudayo ayaa runtii cun. waxaan leenahay runtii shirarka noocaasa ee ummaddu ay kaga tashanaysaa ayaheeda mar rabays hortaagimayno mar walba waanu hambalyeynayna mar walba waxaanu leenahay shirarku inay beelahu ka tashadaan aayahooda xaq bay u leeyihiin cid walibana maadaama ay xuquuq leedahay xuquuqdooda inay eegtaan oo isweydiiyaan xaq bay u leeyihiin waa xuquuq dastuuriya waana xuquuq sharci. intaa marka laga gudbo runtii shirka kan oo aan markii horena tilmaamay waxaa laga yaabaa in dadku aragtiyo kala duwanaa uu ka cabirayayo xilligii u horreysay baan xasuustaa boqor cismaan buur madow halka igu weydiiyey imaaraadka maalmihii dhawaqu soo baxay sideed u aragtaa shirkaa iyo hawshiisa iyo maxay kula tahay. waxaan ku lahaa aragtida ah war malaha waa xilli xasaasiyaho waktigan shirka la qabtaa armuu xasaasi yahay oo dhibtiisa leeyahay armuu culayskiisa idinku keena. waxaan laakiinse runtii beesha iyo odayaasha iyo sulaadiinta iyo ragga kale ee aqoon-yahanka iyo qurba joogga dhammaantood ku mahadinaya inay garaad mug leh iyo garasho koran ku maamuleen oo ay ka ilaaliyeen cid walba mid dhow iyo mid dheer inay xagtinta ka ilaaliyeen. waxaan se jecelahay runtii
وأن حسن إيو قرية كلام وقفاني دمان أركينين أنا مركي شركة هنا فكرة داسانو كقبني أهو أربع حساسيات وكنتا مركي سرير كشري ودوانا لو يمنا ليرو شركة وصعدايا محاجة سنيسان قعن بانو كجيسني مقله كل يبقى كل ميانا كقعن وينينو قعن تاسان مسلم قعن تاسان مسلم قرن كنا واود عميسان قعن مقله ميسان لبانو كجيسنين وحي عاوما شركة نلوغا بعضا نلويديي إنو كجيسنو عاوما لو بعضو marka waxaan leenahay shirarka noocani way wanaagsan yihiin oo maamulkooda in la xakameeyo la ilaaliyo waa loo baahan yahay annagu hadday tahay shirkii soo gabagaboobay oo maanta soo gabagabayna waa hambalyeynayna waa mahadinaynaa waana ku kalsoonahay wixii ka soo baxay Somaliland waxaan leeyahay dhammaanteen waxaynu wax ku noqonaynaa inagoo qarana oo ilaalina qarannimada go'aamada qaran bar walba ku jira shirarka qarannimada taageerayana waxay muujinaysaa xididka dheer ee ummaddu ay ku ilaalinayso qarannimadeeda iyo umadnimadeeda iyo dawladnimada ku ilaashanayso ayay runtii ilaalinaysaa oo ay runtii ka turjumaysaa aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya mar labaad iyo mar saddexaadba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عليك السلام ورحمة